maanta ay taariikhdu tahay 17 bishii August 2021 waxaan leeyahay runtii halkan shirkan jaraa'id ama kulankani waxa uu daaran yahay waa kulankii ugu horeeyay gudidii aanu dhawaan ku dhawaaqnay soo xulista tababaraha xulka qaranka Somaliland ay ku wada qaadanayeen ka gudoomiyahan bahda saxaafadda waxaan ku wareejinaynaa gudidan oo runtii halkan saaka ku kulmay intaa wixii ka dambeeyana iyaka ayaa shaqada runtii wadi doona saaka waxaa halkan ka dhacay runtii kulan aad u qiimo leh oo runtii muhiima gudidu waxay ka wada hadleen runtii qodobo aad u muhiima iyagoona halkan ku gorfeeyay runtii qaybo ka mid ah shuruudaha iyo sidoo kale qorshayaasha ay ku wada shaqayn doonaan oo ugu horeyso in ay sameystaan structure ay ku wada shaqeeyaan kulamadoodiina runtii waqtiyadiina qoondeeyay ay qaban doonaan ka gudoomiyahan waxaan runtii ugu ducaynayaa hawsha culus runtii ay qaranka u qabanayaan waynu ognahayo dalkani national team ama xul qaran hore uma lahaan jirin mar haddii shaqada la bilaabayna runtii waxay u baahatay oo laga maarmaan noqday in aanu runtii u baaqno bahweynta ciyaaraha dalka Somaliland isla markaana ka soo xulno gudi aanu u aragnay in ay ku haboon yihiin in ay soo xulaan ka soo tala bixiyaan qiimeeyaan sidii qarankan u lahaan lahaa xul qaran oo runtii dalka matala koleba xiriirku maanta sida wasaaradda sportska ay u wadaan ama horumarka la gaadhay qofka walba indhihiisu ku arkaya garoonka markaad tagtid ciyaaraha sida u socdaan sida bida sida sida maasha allah tabaaraka maxaa diiday marka inuu qaran helo qaran la helo waxa weeyaan qarannimada Somaliland waa inay ka timaadaa bulshada hadda wasaaradaha arrimaha dibadda kale waxay iibkaysaa qadiyadaha Somaliland tanna waa sportska ka mid tahay qadiyadaha in la iibgeeyo ma garanaysaa qarannimadeena oo la yiraahdo Somaliland baan nahay sportska waa kaas qaran la helo waa mid muhiim weeyaan waa mid meesha ku jirta weeyaan siyaasaddu iyo sportsku iyo dhinac walba inaynu ka soo galno markaynu qaran helno waxa weeyaan because fanaanada lagu ciyaarayo iyo garabka waa calankii Somaliland inuu meel walba ka muuqdo waa muhiim weeyaan waa mid ku jirta weeyaan laakiin inaynu ma garanaysaa isku duubnaano aragtideenu isku mid noqono markaasaynu guul gaari karnaa waliba hadalkiisii badneed mustabeedka gudida ayaa qaato Jamaala oo sidoo loo falanqeeyay hawlaha waliba maanta waxay ahayd isbarashahay oo gudida soo aragto oo isbarato ay ahayd wixii hawlaha ay falanqeey karaysan ay falanqeyso marka kullu kulamo badan ayaa noo harsan hadii Ilaahay yiraahdo ana ku hadlaya xogayaha gudida marka kullu waxa la waa kulan aad u qiimo badan waxa kale inta aan ku diri lahaa si laga dhawaajiyay national teamku waa muraayad Somaliland buu noqonaya insha Allah ta'ala oo waxaan ka warhaynaa wadamo badan oo adduunka ka jira oo aynaan garanay laakiin hal qof ama laba qof oo ciyaara oo calankoodii wato ku ciyaaraya wuxuu noqonaa jira marka sida Jamaal sheegay kulliga muraayad Somaliland bay noqonayaan markay baxaan oo Ilaahay safar qabu ka dhiga baxaan waxay ku ciyaarayaan waa magacii Somaliland calankii Somaliland ay wataan intaas ay nagu filan qurux hadii la sheegayo aqoonsiga qayb ka noqonaa saayo aan la garaneyn ayaan garan doonaa hadii Ilaahay yiraahdo kulay waa kulankeygii koowaad kulankani waxaan u mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaadba dadkii soo qabanqaabiyay hawshan fikirkana waa fikir fiican oo mataqaanay dalka Jamhuuriyadda Somaliland u wanaagsan macallinkii baan doonaynaa inaan soo xulno dad badan baa isweydiinaya mataqaanay sidee loo soo xulay macallinka taas waxa weeyaan horta inaanu shirar kala yeelano maanta uu yahay shirkeyga noogu horeeyay shirarkaas waxaanu ku falanqeyn doonaa amba aanu mataqaanay soo diyaarin doonaa shuruudihii aanu kaga rabnay macallinka maadaama uu mataqaanay arrinkana uu nagu yahay bilow shuruudahaasi kulay imika maanta uu kulankeyga koowaad yahay shuruudahaasi waxay noqon doonaan gadaal baanu ka soo sheegi doonaa insha Allah hadii Ilaahay nafta noo daayo oo Ilaahay nagu simo waxaan naga maqan xubnahaygii 7 ahaa hal qof marka kulay diyaar garow fiican baan sameeynaa waxaan rajaynaynaa
bahweynta Somaliland ku nool ee waliba ku qaabilsan ciyaaraha amba xiisaysa amba daawadayaasha ah inay ducaan nagu soo garab istaagaan waan arkaynaayo dadku ma taqaanaay badiyaa waxay leeyihiin hargeysa oo kaliya ma taqaanaay laga rabaa marka kulli bini'aadam baynu nahay ma taqaanaay cadaaladda Ilaahay baa haya anagu waxaan ku rajo weynaa sidii cadaaladda ahayd ugu quruxda badnayd ugu nidaamsanayd macalkii shuruudahayaga aan soo qorno ka soo baxa inaan ma taqaanaa u igman doono insha Allah anagu wax kale u eegay gudidana aad iyo aad bay mahadsan yihiin ma taqaanaa waxaan kaloo aan rajeynaa shirar kale oo fara badan inaanu yeelano si aanu u qorano shuruudaha macalinka aan ku xiran kulay dal baynu nahay maanta ma taqaanaay loo bilaabayo xulkiisii ugu horeeyay kulay hawlo badan baa iska imanaya shaqadana waa shaqo kulay yar maaha waa shaqo adag hal qof waa laga rabaa intaas oo ma taqaanaa gobol oo Somaliland kasoo bilowday ilaa ma taqaanaay Ceergaabo laga rabo macalinkana waxaan ku qiimeynaa kulay shuruudaha anagu aan dhagnay iyo CV-giisa waxaan rajeynayaa ma taqaanaay inaad garab taagnaan doontaan macalin kastana waxaan rajeynayaa inuu noola yimaado shuruudo sax ah CV sax ah iyo wixii macquul ah insha Allah